gabadhi hadda laba jeer ayaa qalbiga laga jabiyey, laba jeerna way sinaysatay, laba jeerna waxa waaye way khasaartay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamaya meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad ii maqlaysaan. maanta waxaan idinkaga sheekeynayaa qiso jacayl oo aad iyo aad u xanuun badan runtii. qisadan jacaylka waxay ku dhacday gabar culeej la yiraahdo iyo wiil xamse la yiraahdo. run ahaantii gabadha sheekadan haddaan idinkaga sheekeeyo, qaarkiin horta sheekadan waad la yaabi doontaan, qaarkiinna waad ku qosli doontaan. waayahay, culeej waa gabar dhalinyaro ah oo ku nool dalka Canada. muddo 5 sano ah ayay ku noolayd, waxayna isbartay wiil la yiraahdo magaciisa xamse. haddii barnaamijka la garaya maanta rag badan baan fashilayaa. waayahay, qisadani waxay ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo magaceeda la yiraahdo culeej oo nala wadaagtay, si toos ah ila wadaagtay qisadatan. run ahaantii aad baan uga xumaaday. waxayna tiri magacayga ani magacaas culeej aniga u bixiyey. gabadhan waxay dalka Canada deganayd muddo 5 sano ah. 5 sano ugu horreysay waxay ahayd gabar shaqaysata, wax barata, basically aad isu diyaarisa, nolosheedana ka fogaata. ayadoo xaalku sidaas yahay ayaa waxay isbarteen magaciisa la yiraahdo xamse. run ahaantii ayada iyo xamse aad ayay isu soo dhaweeyeen. isbarashadoodii koowaad waxay isku afgarteen inay isku raacaan meel kafee ah oo break time-ka iskoolka ay ku wada qaataan. culeeji marka kasta gabar iyada waxay ahayd aad iyo aad iyo aad u akhlaaq badan, laakiin khaladaad hore uu ka dhacay. khaladaadka ugu weyn nafteedana ayada ayaa gashay. xamse wuxuu ahaa wiil qurxaan ah oo aad u sheeko badan, haddana af miishaar ah. kulankoodii koowaad ayayba ka heshay, aad ayay u dareentay. waxay tiri qof noocaana miyaa jira? okay, xamse marka wuxuu joogaa asaga waddanka muddo sanad iyo bar ah buu joogaa. culeejna 5 sano ayay waddanka Canada degantay. faamilkiisa oo dhan xamse waxa ay degan yihiin dalka Uganda. subax kasta markay iskugu imaadaan iskoolka waxay ahaayeen 2 qof oo ayagu isfiirsada. dareenku waa ka awood badan yahay, way fiirsanaysaa asag. laakiin dhanka xamse wax dareen ah haba yaraatay ma jirin. qofta la yiraahdo culeeji ayada dareen ayaaba markiiba abbaaray. sida xaalku saas u ahaa, waxay go'aan ku gaareen in ay si ay waqti fiican isula qaataan in ay ku ballamaan restauranti ama maqaayad VIP ah. maqaayad hebla adres kala siiyey, halkaas ayaana lagu ballamay in la isugu imaado 10 galabnimo. qof walba waa soo labistay labiskiisa ugu dambeeyey. culeej oo khamkhamkeeda wadata iyo xamse oo asaguna ka daran. culeej laftigeedu waxay gabar aad u qurux badan, aad u akhlaaq badan, dheer iyo joog iyo jamaalna ilaahay siiyey. meeshii lagu ballamay ayaa waqtiga ayaa la gaaray. qof walbana taleefanka ayuu dhigta ku hayaa, waa soo dhawahay, waa soo galay, waa ii muuqataa iyo waa joogaa baa lagu wada hadla. culeej aad ayay u danaynaysay, wayna ka soo hormaray. waxayna timid maqaayadii. xamse ayaa iridda ka soo galay oo asaguna dee khalkhalkiisa wata. xamso maanta waa shidan tahay, wuxuu ku yidhi adiga isma jeedin miya? meeshii ayaa lagu sheekaystay, lagu kaftamay. culeeji waxay go'aan ku gaartay in ayadu sheekada ku hormadho oo waxay ku tiri xamso noloshaada in aniga wax ka ogaado ayaan rabaa. xamse wuxuu ku yidhi maxaad jeceshaa inaad ka ogaatid? wax kastoo aad rabtidna aniga ayaa diyaar kuula ah. soo dhawow ina weydii waxa aad jeceshaa. wuxuu ku yidhi anigu sheekadeedu waa badweyn, haddaan kuu bilaabee adigu iiga hormaro, bal adiga noloshaada iiga sheekay. waxay ku tiri xamsow aniga run ahaantii wax nolola ma lihi. horey ayaan u soo khasaaray, dhibaato badan ii soo gaartay, laakiin waxaan rabaa wax allaaleba ii soo gaaray in qofka iga mayri lahaa aan helo. maxaa ka mid a buu yidhi wax kusoo gaaray, maxaa kaa qaldan? waxay ku tiri xamsow run ahaantii dhib aad u weyn ayaa isoo gaaray. waxaana jeclaaday wiil dhallinyaro ah. aniga oo jooga dalka Kenya ayaan waxaa jeclaaday wiil dhallinyaro ah. xilligaas oo aan ahaa dhallinyaro wuu i khiyaamay, si xun ayuuna yeelay, mana rabo inaan sii wada sheekada. wuxuu ku yidhi haddii aad sidan iga cabsanaysid oo aadan sheekada ii bayaanin, hadda ismaba fahmi doono, mana isfahmi karo. xamse wuxuu go'aan ku gaaray inuu ogaado meesha wax ka jira. waxay ku tiri xamsow waan kuu sheegayaa wax walba oo dhacay, laakiin ilaahay baan kugu dhaarsheeyay inaad cidna u sheegin, iga ballan qaad. xamse waa sida uu rabay. wuxuu yidhi ballan baan kaa qaadayaa, qofna ma ogaanayo, labadeennana ina dhaafimayo. midda kale ani adigu 2 qof oo dhalinyaro ah baan nahay, asxaabnimaan ku sheekaysana, saaxiibtinimo ayaanu ku wada hadlaynaa. saaxiibkaa koowaad ayaa noqon doonaa. sir kasta oo aad ii sheegatidna waxaan ku ballan qaadayaa in aanan kaa sheegin. ee ii sheeg sheekadana ii bilow, waa u kululahay inaan ogaadeen.
gabar daacaday ahayd run ahaantii cureeji waxayna go-aan ku gaadhay in ay sheekadii iyo si wax u jiraan ay u sheegto. waxay ku tiri xamsow 6 sano ka hor waxaan isjeclaan wiilkaasna si xun ayaan mataqaanaa u jeclaaday waan is ilaaway run ahaantii gabar aad iyo aad u akhlaaq badan u dabeecad wanaagsan u damiir wanaagsan laakiin waxba igu dhacay taariikh aanan weligay kasoo kabanin ayaan igu dhacday. reerkayagu waxay iga aaminsan yihiin cureej inay gabar tahay laakiin run ahaantii gabar ma ahay. wallaahi aad baan uga xumahay laakiin wiilkaan jeclaaday wuu i khiyaamay jacayl xun ayuu igu beeray waana iga sinaystay. naxdin weynaa calolxumo badanaa racan weynaa. xamse kama waale wuxuu ku yidhi waayahay siday u dhacday wax kasoo dhacay waa dhacan hadda waa taariikh hore ha walwalin ha walaacin waxaan kaa ballan qaadaya inaan ku ilowsiiyo haye maxaa dhacay iyo sheekada. waxay ku tiri marka allaaliya markii aan sinaystay gabarnimadeedii waayey ayaan waxaan ku yidhi walaal i guurso waxaan u baahanahay maadaama aan heerkan joogo in aan reerkayga si aysan ii ogaan ii asturo oo walaalow ilaahbaan ku dhashay xaaladan sida iidhaan. waxau iiga jawaabay walaal aniga naag aan saan yeelay see u guursadaa aan guursan baaban saan yeelay iga raali noqo wuuna ka dhaqaaqay. qalbiga ayaa iga jabay. muddo 6 biloodana qolkayga aan deganaa kama soo bixin. reerkayga waxay dhaheen waa xanuunsan tahay sidaas ayaana layn Canada ah la igu gaday. waan ku soo baxay oo waxaan ku imid Canada maadaama xaaladeedii la bixin waayey ayaa waxaa la yidhi bal inay gabadha buufis ba haye qurbaha ha loo diro sidaas ayaana ku imid halkaana ku joogaa nin dambana ma shukaansano ragga dhan waan ka baqaa. xamse wuxuu ku yidhi i aamin indhahayga fiiri totally ma ku khiyaamayo walaalkaa baan ahay saaxiibkaa baan ahay wax kastana laa ku noqonayo anaa garabkaaga ah. maxaa dhici doona wuxuu ku yidhi iska ilow wixii hore waxaan kaa ballan qaadayaa wax walba oo aad u baahan tahay inaan farta kaa saara xataa nolosheeda ha ku ahaatay. kalsooni tira badan ayay meesha isku daansadeen way wada cunteeyeen cunta afka la isu gelgeliyey muddo kadibna waxay tiri haye hadde dhinacaaga adiguna ii bilow. waayahay dhanka kale xamse waxay degan yihiin faamilkiisu sidaan hore idinku wasa sheegayba Kampala magaalada Kampala oo ay hooyadiis iyo faamilkoodaba degan yihiin. waxaana sidoo kale isla Kampala degan gabadhii xamse loo ballan qaaday in loo guuriyo oo waxayba la degan tahay oo faamilka ka mid tahay hooyadii dhashay xamse iyo gabadha uu guursan doonaba waxay wada degan yihiin Kampala. waxayna ku ballameen inay isguursadaan marka uu Canada kasoo laabto guurkoodana halkaa uu ka dhaco. gabadha xamse uu guursan doono ee reerkooda u hayaan waxay ahayd gabadh aad iyo aad ugu jeclaa oo yaraantoodii xataa ay isla soo koreen ilaa xadna ay isku kalsoonaayeen. xamse xaalad baa ku furan opportunityna wuu haystaa wuxuu degan yahay wuxuu joogaa Canada gabadh Africa joogta waxaan malaynayaa in uusan jaani siin doonino wuxuu bal ku qabsan doonaa gabadhan qalbiga wanaagsan cureeji ah daacadana ugu warrantay uuna u carab laalaadiyey inuu guursan doono ayay u badantay bal aynu ogaano. waay sheekadu bilaab wuxuu ku yidhi aniga hooyada halkaas degan tahay faamilkayga halkaas degan yihiin weligii wax ma jeclaan ilmana ima joogaan keligii ayaan ahay waxaana doonayaa nolol dhammaystiran inaan qofkii aan la qaybsan lahaa inaan helo. waxay ku tiri xamsow waxa ku hoos jiifa waa bureeqo oo si weliba naxariis leh u fiirinaysa u daalacanaysa. waxay ku tiri waa kaa ballan qaadaya naftayda inaan kugu wareejiyo. xamse dhoosh ku qoslayaa waxba u qarsoon laakiin way soo bixi doon. xamse asagu marka gabadhan sinaba u rabaa oo gabadhan quruxda badan iyo magaalada uu degan yahay iyo qabowgan iyo waxaan wuxuu is leeyahay wallaahi gabadhan wallaahi yaa niid iska leeyahay. kuleeshkii baa lagu laabtay shaqadii sidii baa laysugu fiicnaa saaxiib baa la noqday meel kastaa la isu raacay dhaqaalaha la wadaagay wax walbaa la wadaagay dhan walba waxaa la noqday 2 qof oo lawa qurbahan dee saaxiibana ka noqday haddana isjecel. dareen aad u qurux badan ayuu usoo bandhigay. waa nin af Soomaali badan waa nin af miishaara waa nin qurxaan ah. muddo sidiisaa loo ahaa 3 bilood ayaa dhammaatay. waxay maalin dambe kula ballantay waxay ku tiri xamsow kulankeeni maqaayadda ugu dambeeyey maanta ii imow guriga igu imow maadaama aynu muddo aynaan kulmin ay xog wareysano guurkeena iyo mustaqbalkeenaba aynu ka tashanay. cureeji waxay degan tahay guri 2 qol ah oo ayada u go-an oo keligeed u diyaarsan oo aad iyo aad u qurux badan. galabtii markii la gaaray xilligii ayuu guriga ugu yimid
irida marka soo galayna waxa uu kasoo galay sidii wuxuu u dareemay in uu yimid gurigiisii oo kale. irida kasoo galay waxaa ka hor yimid Xureeji oo quruxdeeda iyo shacnigeeda iyo iftiinka ka baxaya aanaba uusan caadi ahayn. xamse markiiba qalbiga wareegay, shaydaan baa markiiba ku shaqeeyey, wuxuuna ballan kula galay naftiisa inuusan caawa ka tegin inuu ceel ka cabi maahan. ilaa asagu ma raba guur, sida xaqiiqada ah wuxuu jecel yahay gabadhii joogtay Kampala. gabadhaan ma jecla oo waxa waaye dareen ka helitaan waa jiraa, laakiin jacayl uma qabo. okay waaye waxa dhacday gurigii markii uu soo galay ee halkaas isugu imaadeen ay wada sheekaysteen, fadhigii la wada tagay, cabitaan loo keenay, laakiin inaba u diyaarsanaa jeebka ugu jiray buu cabitaanka ugu riday. cabitaankii markuu kaniiniga ugu riday, cabitaankii la cabay, gabadhi waa suxda, wuu ka shaqaystay. hadda habeenkiina waa meeshii wala seexday totally. waaya subaxdii ay soo kacday, xamse maxay igu samaysay? anigaba waan isilaaway, cabitaan ayaa cabi, labadeennana waan isilownay. mar labaad ayaa gabadhii qalbigeedii la jabiyey. waxay ku tiri xamsow, khalad ayaa samaysay, si xun ayaana ii gashay, ee walaalow i guurso. wuxuu ku yidhi run ahaantii ma ku guursan karo, gabadhaydina Afrika ayay joogtaa, amilkii ayay la degan tahay, hooyadii ayayna haysaa, mana awoodo inaan guursado. iga raali noqo. sidii ayuu nooga tegay. Xureeji sidii ii sheegtay, hadda waxay la nooshahay murugada iyo xanuunkii, dareenkii iyo dhibaatadii ka marsiiyey ayay la nooshahay. run ahaantii markay sheekada ila wadaagaysay Xureeji, aad iyo aad ayaan u xanuunsanay. waxaana sheekadan idinkula soo wadaagay maadaama maanta waxa weeye qurba la joogo, dadka intooda badan ay guryo iska haystaan, nolol iska haystaan, shaydaanna u dhexeeyo laga faa'iidaysan. gabarey haddaad guri kaligaa degan tahay, faamirkaaga la deg, ehelkaaga la deg, walaalaha la deg. marnaba ha ogolaan in kaligaa meel cilla degtid. labadii qof oo dhalinyaro isla joogtaba shaydaan baa isdhexeeya. marka laba qof oo aan isqabin, oo aan waxba isu ahayn, oo aan waxba iska gelin, inay isu imaadaan, guri wada degaan, guri isla galaan, isla sheekaystaan, shaydaan baa ku saddexeeya ah oo halkaas iska faa'iidaysanay. marka cibri qaadashana way tahay sheekada tani. sida kale markii loo fiiriyana run ahaantii waa sheeko muruga badan. gabadhii hadda 2 jeer ayaa qalbiga laga jabiyey, 2 jeerna way sinaysatay, 2 jeerna waxa waaye way khasaartay. nolosheedana hadda waxay tidhi inaan guursan doono u malayn mayo. dhibka inta tira leeg ayaa soo gaaray, aad ayaan uga xumahay runtii. waa gabar kanaal ku xiran oo channelka daawata. waxay ku tiri sheekadan la wadaag, laakiin contactigayga cidna la wadaag. run ahaantii gabadhaas aad baan uga xumahay dhibka soo gaaray. waxaan leeyahay walaal ilaahay samri iimaan ka siiyo. rag xun baa ku helay, 2 qof xun baa ku helay. dadku raggaas ma wada ahan. waxay igu tiri sidoo kale ballan iyo axdi wax nafteeda kula galay inaan Soomaaliya guursan. ana waxaan leeyahay marka walaalay, raggu ma wada xuma, labada ugu xuma hadday kugu soo aadameen. waxaan hubaa rag wanaagsan in ay jiraan. ilaahay wax kaaga rajaynayaan qalbiga ku wanaajiyo, ilaahay inuu qalbiga ku qaboojiyo. runtii aad iyo aad baan murugada kula qaybsanayaa. aniga iyo asxaabta inta ku jira meesha wax ku leenahay, ilaahay qalbiga ku dhayo, ilaahay ha ku caafiyo ayaan leenahay. runtii waa musiibo waa runtii. waxayna fududaynaysaa qof kasta oo qurbaha jooga ama meel qurbaha imaada oo kaliya guri dega oo noloshiisa ugu antay oo shaqaysta, dhibkaas uu soo gaaray hadduusan is ilaalin oo ilaahay ku xirnay. aad iyo aad baan idin salaamaya. sheekada halkaas kusoo gabagabeynaya. gabadhaasna committee way akhrin doontaa insha Allah. wixii aad kula talan lahaydeen committee sectionka nagula wadaag. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nooli kulante.